Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkeen qaaliga markasta nagu qaali fadlan muuqaalka commentiga ayuu yaalaa description-ka hoose commentiga. Fadlan channelkiisa booqo, subscribe-na u soo saar. Channelkiisana waa Qiso Production Official. Fadlan like ha ku caawiya iyo views-ka u saara. Muuqaalkana share u siiya, subscribe-kana ku caawiya iyo like-ga. Waa walaalkeen. Masha Allah, kusoo dhawaada muuqaalkeen. Yeah, yeah, yeah. Saraica Studio. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta hadday tahay marka ugu horeysa muuqaalka noo saar like waa muhiim maadaama muuqaalka daawanaysa like noo saar. Channelka haddaa ku cusubtaan subscribe saar. Runtii aniga saaxiibkeen isku da ayaan ahayn, markastana waxaan jeclaa inaan u sheekeeyo. Anigana waxaan jeclaa inaan markasta aan tago lambar 1 inaan noqdo qofka tagaa dhulkaas duurka oo kusoo guuleystaa asagoo waxba aan ku noqon. Laakiin saaxiibkay waxaan dhahay ma i raacaysaa, waan baxaynaa. Asagoo markaas diidan ayaan waxaan dhahay lambar 1 waxaan noqonaynaa qofka taga meeshaas duurka haddaba haddaa ogashahay i raac, ninka guuleysta ayaan noqonaynaa. Kadibna asagoo markaas dareemaya walbahaar ayuu wuxuu yidhi nakaci waa baxaynaa. Kadib waa baxnay aniga saaxiibkay. Runtii zaid ayuu nagu cabsoonayay, aniga laakiin cabsi ma dareemeyn. Waxaan ahaa qofka koowaad oon soo wada. Kadib cabaar markaas soconay oo lugeynay oo in badan ayaa soconay ayaa saaxiibkay uu dhididay. Wuxuuna i weydiiyey saaxiib meesha u soconna miyay dhowdahay? Kadibna waxaan dhahay saaxiib way dhowdahay nakaci. Anigoo markaas zaid u soconno oo duurkana uu duur meeshana mugdi ay tahay oo la baqbaqayo ayaa saaxiibkay runtii zaid ayuu cabsoonayay. In badanna wuu iga dambeeyay. Runtii horteydana inta noo dhibneed ma yareen, waayo dhulkana zaid ayuu u fogaa meesha u soconay. Saaxiibkay wuxuu yidhi waa nasanaynaa meesha, anaga ku nasanayna ayuu wuxuu yidhi saaxiib waxaan ila fiiri meesha taagan oo yaabka igu dilay. Kadibna anagoo yaaban oo markaas meesha la yaaban, naagta taagan, naag ayaa markaas meesha taagneed cunto wado. Naagta naag aad u buuran ayay ahayd. Kadibna wuxuu yidhi saaxiibkay maxaa rabtaa oo u baahan tahay? Kadibna waxay dhahday cunto iyo alaab ayaan wadaa, meesha ayaana ka shaqeeyaa markasto. Kadibna waxaan dhahay meeshaan kugumaan arkin. Saaxiibkay su'aashaas ayuu weydiiyey. Kadibna cunto ayay noo soo taagtay moos kadibna waan cunnay. Markaan cunnay ayaa waxaan dhahnay lacag miyaa naga rabtaa? Ayadoona markaas dhehayso maya wax lacag inkama raba, horey u sii socdo, horey ayaa la ka helaysiin wax kasii fiican. Anigoo markaas meesha taagan oo baxnay ka tagna naagti ayaa saaxiibkay inuu iga haro damcan. Waxaan dhahay saaxiib nakaci. Anina zaid ayaa markaas u dhididaya. Markii dambe naagta arkay waan baqay. Runtii saaxiibkay wuu yaabanaa. Runtii markaa cabaar meesha taagnaa ayaa waxaan aragnay arrin naxdin leh. Zaid ayaan u cabsoonnay aniga saaxiibkay. Waxaan aragnay nin gaari wato oo meesha la taagan miis oo qoortana ka go'an. Naxdin weyn ayay nagu noqotay. Xaggaas waxa u laabanay dhankaa ka imaanay. Kadibna saaxiibkay wuxuu yidhi saaxiib mar dambe kuma soo raacayo. Anina zaid ayaa u daalsanaa, laakiin saaxiibkay wuxuu helay gacan meesha taalo oo fara bis leh. Kadibna wuu qayliyay. Kadibna anina waa qayliyay. Zaid ayaan u cabsooday. Runtii cabsi weyn ayaan dareemayay. Kadibna waa baxnay. Waxaan aadnay xagga iyo dhankaas horey u sii soconay, laakiin waxaan noqonay qofka guuleystay meesha 2020 ayayna ahayd. Kowna anaga meeshaas ku guuleysanay. Habeenkaas saas ayaa ku badbaadnay.